وأنا مقنع دولة ده واحد أنا يجعل لابن دون تمالي واحد هذا تبرت هذا إني كين دورتها وقت علوس أيام كجرنا شن بالكهر فتهذا كجرنا عذر كان إله نقصو زايد كومنتس تبرت ويرته حدنا لب كان يمد وان صوتنا هن فتهذا مدو صعد ما أنت حاول من ماشي وبابا أصلا وأرجني وربحنت أنا مركان حمر كنا قنا دو إلى يرادو جدي قناة فتهذا أيام وجود بين دونا مدحوينا أنا ولا وذاك دونا مقالنا وحبالة كمان دونا waxaan maanta u nimid inaan ka damqannay annagoo dawladda mas'uulka ah federaalka dawladda dhexe inaan ka damqannay xaaladii idin gaartay oo idinkaga tacsiyadeynayno idin la qaybsanayno inaan mucaawano idin keenay aan diyaarad ku keenay ay socon doonto diyaaraduhu ay soo daabuli doonaan mucaawanooyinka aad u baahan tihiin qiimaynta iyo waxa la idin keenayana waa xog idinka timid haddana xogaha aad sheegateen oo ah baar dheere inay ku tiirsan tahay laf dhabarna u tahay beeraha waxbaa laga qabanaya horta kanaalada inaan idinka xirno injineerada nala socdo ay qiimeyntooda aan ku dhaqaaqno oo kanaalada la idinka xiro webiga saambaagyo waaweyn la sameeyo xaafadahan hadda soo marnay kaskey iyo kor xaafadaha ku yaalo buulaceesaan iyo aan soo marnay oo dhan waa soo qiimeynay maanta dhan galabta dhan baan soconay si fiican baan u soo qiimeynay inaan hawshaas ayada aan ka jawaabno targetka iyo dadka qaxay ee biyaha ay qaxiyeen ilaa iyo mucaawano gaarayso 3,500 inaan hadda maanta aan ka jawaabno baahidooda kadibna aan sii wadno waxaan saan uga gaarnaba hadaan ay tahay waxaan aan ahayn lacagta oo diyaaradda saaran in looga jawaabo iyo cash inaan wax uga jawaabno ilaa 3,500 oo qoys aan uga jawaabno waxaan halkaan u nimid inaan maaragtay gurmadkii ugu horeeyay ee idin soo gaari lahaa inaan qayb ka noqono marka koobaad marka labaadna inaan assessment ku sameeyno meelaha webiga uu biyaha ka fatahay fatahaad baaxadii leedahay inta ku barakacday iyo maaragtay meelaha loo barakacay inaan ogaano xogtaasaan u baahnayn inaan ogaano waxaan soo ogaanay ilaa hadda webiga 2 kiiloomitir iyo bar dhanka bari iyo 2 kiiloomitir iyo bar dhanka galbeed laga soo bilaabo xaawogeel ilaa laga yimaado buundada ama suuqyaraha dhanka kalena laga soo bilaabo meel ka xageeso buulaceesaan ilaa laga yimaado maaragtay masawe intaas inta ka dhaxayso webiga in uu biyihii ka fatahay waxaan macluumaadkan idinla wadaagayo waxa waaye inaan ogaado meelaha qaarkood lugteeda maanan geen biyo buuxay maadaama ay biyo ku jireen sida la ii sheegay macluumaadka inuu yahay mid saxan inta aan laga howlgelin ka hor waxaan rabnaa report inaan ka diyaarino waxaan rabnaa in maaragtay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha in ay ka howlgasho oo biyihii webiga ay xal waara u hesho maxaa yeelay ma jiro dalka Soomaaliyeed meel fatahaad ka dhacday oo xal waara ilaa hadda loo helay dadaalka dawladda waxa waaye hadda wixii ka dambeeyay in xal waara loo gudbo oo laga baxo waxyaabaha la yiraahdo emergency-ga ama waxyaabaha xaaladaha degdegga ah waan u mahadcelinaynaa guddiga gurmadka degdegga la soo gaaray markay arkeen baahida iyo dhibaatada ka jirta ee degmada Baardheera u soo qaatay saaki maxaan ku raahdaa 2 diyaaradood mid ay wateen iyo mid qalab ay ugu wadeen degmada Baardheera halka Baardheera waxa ka dhacday masiibo aanan dadku dhimanin laakiin beerihii iyo dhulkii maxaan ku raahdaa ay ku dhumeen kolley waftiga hadda soo kormeer way arkeen khasaaraha meesha ka dhacay waxayna arkeen biyaha meelaha ay ka soo baxaan markii biyo baxalku u dhaca magacaygu waa Saacid Abshir Cartan isku duwaha wasaaradda beeraha ee Baardheere meesha hadda aan joogno waxa la lahaa buulaceesaan biyahan hadda u jeedaan waxay is haystaan ilaa Shimbiroole ilaa iyo buundada Shimbiroole markay ka bilaabato ilaa iyo Dhoobleen way is haystaan beeraha badana 2 nooc weeye nooc biyo way celiyeen oo waxa weeye webiga la siman noocna hadda u jeedaan webiga ka koreeya biyo baa la fadhiista hadda biyahan waxa laga yaabaa inay 2 bilood saa u fadhiyaan beeraha webiga muxuu ahaa ay ku fataheen guud ahaan waa 2,270 beerood oo ka soo rogmatay Buulacadey ilaa ay aaga Buurdhow aan la leenahay Buufow beeraha matooro ba muxuu ahaa yaa damage garoobay oo webigu ka dulmaray waxa weeye 260 matoor
dalagyadii saarnaa oo soonka loogu talagalay sida qarihii mooskii muxuu ahaa qudaartii oo dhan biyahana ka koreeya dadkii tuulooyinka deganaa 71 tuulo annaga iyo guddigii beeraha aan soo fiirinay dadkii beerihii isaan uga buuxsameen tuulooyinkii dhooban yihiin 71 tuulo oo hoos imaada degmada Baardheere waxaa kaloo jira xaafado kale oo webigan dhinacan ka ah oo ayagana buuxsamay dhammaantiin waxaan ka qayb qaadan karnaa ka hortagga faafidda cudurka coronavirus marka aad raacdo tallaabooyinkan fudud waxaad naftaada iyo bulshadaba ka ilaalin kartaa qaadida iyo faafidda COVID-19 si joogto ah ugu dhaq gacmahaaga biyo iyo saamuun muddo 20 ilbiriqsi ah ha taaban afkaaga sankaaga iyo indhahaaga ka fogow goobaha dadku ku badan yihiin una jirso masaafo dhan 6 feet dadka aad u malaynayso inay jiran yihiin ka fiiri calaamadaha sida xumada qufaca ama neefyarida naftaada iyo qoyskaagaba la xiriir dhakhtarkaaga haddii aad dareento xanuun fadlan raac tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo ururka caafimaadka adduunka marka aad raacdo tallaabooyinkan waxaad gacan ka geysan kartaa ilaalinta naftaada iyo dadka kaleba naga caawi inaan muuqaalkan la wadaagno asxaabta qoyska iyo dadka kale wixii macluumaad intaa dheer fadlan raac tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo ururka caafimaadka adduunka